dalka ruushka isagu danta uu ku leeyahay marka aan fiirino maxay tahay dalka ruushku wuxuu ka leeyahay laba danood ruushku wuxuu qaaradda Yurub u yahay suuq wuxuuna u dhoofiyaa gaas fara badan dalka Liibiya waa dal gaas fara badan haysta haddii uu cagihiisa isku taago dawlad madani ah uu yeesho wuxuu dhoofinayaa gaaskaas waana u dhowdahay qaaradda Yurub waxaa daris la ah dalka Talyaaniga ruushku waxa uu walwal ka qabaa gaaska Liibiya waxa uu ka soo horjeedaa in dawladda hadda Liibiya ka jirta ay ka sii jirto oo ay sii xoogeysato ama dawlad madani ah oo dhanba waa ka soo horjeedaa inay Liibiya ka dhalato wuxuuna taageerayaa ninkan dawlado fara badan ba heshiisyo la galay heshiisyadaasna waa iska hor imaanayaan waxaana ka mid ah dawladaha heshiisyada la galay ruushka wuxuu kula heshiiyay inuu soo gacan geliyo gaaska Liibiya ruushku uu handaraabo qaful ugu xiro gaaska Liibiya weligiisna uu haysto sida gaaska Suuriya uu qafulay oo dadka Suuriya ay waqtan yihiin oo gaajeysan yihiin waa aragteen rafaadka dadka Suuriya iyo gaajada haysta waxaana keenay heshiiskii uu Bashaar al-Assad la galay ruushka ee ah inuu haddii uu xukunka ku sii hayo inuu u gacan gelinayo gaaska Liibiya si uu xiro ruushkuna u maanafacsado khayraadkiisa una dhoofiyo qaaradda Yurub sidoo kale danta labaad uu ruushku ka leeyahay gudaha Liibiya waxa waaye inuu saldhig ka samaysto saldhigga Al-Jufra magaalada Al-Jufra oo saldhig weyn leh waliba magaaladaas loogu magac daray isla saldhiggaas loogu magac daray magaca magaalada loona baxshay saldhigga Al-Jufra saldhigga Al-Jufra waxa uu ku yaal dhabarka dambe ee qaaradda Yurub uu noqonayo Mareykanka ayaa laakiin taa ka soo horjeeda oo wuxuu u arkaa khatar amni oo ku soo socota danaha Mareykanka qaaradda Yurub iyo qaaradda Afrika